booliiska magaalada Bergen ee caasimada labaad ee dalka Norway ayaa ku baxay dhacdo la yaab iyo makaag iyo fajicisa ku noqotay kadib markii lagu soo wargeliyay gurmad degdeg ah looga dalbaday nin 30 jir ah oo ku hubaysnaa toorey isagoo ku laafiyoonayana uu la koray bas ku sii jeeday degmada Os ee duleedka magaalada Bergen waxaana lagu soo waramayaa in ninkan 30 jirka ah oo ku hubaysnaa tooreyda uu ku laafiyoonayay uuna baska ka raacay albaabka hore ee darawalka halkaasoo isagoo aanan cidna la hadal gudaha la soo galay isagoo la laafiyoonaya mindidii uu watay arintan ayaa ku keentay argagax iyo cabsi soo wajahday darawalkii baska waday iyo sidoo kale rakaabkii baska la socday hayeeshee 30 jirkan ayaa lagu soo waramayaa in uusan tooreyda cidna ku handadin ama hanjabaad ugu geysan darawalka iyo sidoo kale rakaabkii baska saarnaa taliyaha howlgallada booliiska Morten Robnord ayaa ku waramayo in ninkan 30 jirka ah ee mindida la laafiyoonaya waliba gacanta isaga oo ku wata baska la raacay uu baska kaga degay terminalka Os halkaasoo uu sheegay in abaarihii 11:20 daqiiqo uu baska ka degay waxaana lagu soo waramayaa in booliisku ay goobta ku qabteen ninkan 30 jirka ah oo la laafiyoonaya mindidii uu watay isagoo aysan jirin cid uu waxyeelo ama handadaad midna ugu geystay waxaana lagu soo waramayaa in booliiska ay ninkan mindida ka qaadeen sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay kiis ka fureen laguna soo oogay ninkan in uu mindi ama toorey isaga oo ku hubaysan la dhaxgala goobo shacab ama goobaha dadweynaha oo aan loo ogolayn waxaana lagu soo waramayaa in ninkan hadda gal dacwadeedkiisa uu ka furmay magaalada Bergen ee caasimada labaad ee dalka Norway halkaasoo lagu soo oogay dacwad ah in uu goobaha dadweynaha la dhaxgalay toorey ama mindi aan raali looga ahayn waxaana lagu soo waramayaa in hadda ninkan maxkamad loo soo daagi doono dadweynihii saarnaa baski ku sii jeeday degmada Os ee duleedka magaalada Bergen iyo sidoo kale darawalkii baskaasi waday halka warka kiisa uu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.